الله naxariiste senator Maxamed Cali Yuusuf Gaagaab oo dhawaan ku geeriyooday dalka Turkiga xubinna ka ahaa golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta la soo gaarsiiyay magaalada Muqdisho halkan oo ah garoonka aadan cadde ayaa loogu dugtay salaada janaasada waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya waxa weeye haliyay Soomaaliyeed oo dalkan ka baxay ayna maanta geeridiisii u joogno weeye laakiin qof waliba uu dhimanayaa oo cid noolaanaysa ma jirto laakiin waa la kala horeyn karaa waxaanan erayay ku soo gabagabaynayaa samir iyo iimaan dhammaan qoyskii iyo qaraabadii iyo dadka Soomaaliyeed ka geeriyooday ha ka siiyo haynaga siiyo isagana jannadii firdawsa ilaahay ha geeyo ilaahay naxariistii jannadaas iyo walaalkeen Maxamed Cali Yuusuf Gaagaab waxa weeye nin oday ah aqalka sare ka tirsanaabo ahaa waxaan soo wada shaqaynay labadii xilligii hore guddiga dastuurka iyo xubinka ahaa baarlamaankii tobnaad haddana walaalkeen wuxuu ahaa aniga asugu isku gobol baan ka soo jeednaa gobolka Mudug rag saaxiibana waan ahayn isku deegaanana waan ahayn wuxuu ahaa oday weyn oo maanta Soomaaliya ka tagay buu ahaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay naxariista ha siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan idin leenahay ama isleenahay annagoo dhan sabir iyo iimaan Allah naga wada siiyo nin wanaagsan oo wanaag lagu yaqaan ahaa nin xilli adag baarlamaanka gaar ahaan aqalka golaha sare golaha muxuu ahaa aqalka sare ka soo saaray oo la xasuusto xilligii ayaantii 2022 weeye nin qiimo badan oo bulshada wax weyn u soo qabtay gaar ahaan deegaamada aan ka soo wada jeedno Mudug nabadda iyo kulli ka soo shaqeeyo ahaa ilaahay ha u naxariistaan leenahay ehelkiisina mar kale iyo qaraabadiina sabir iyo iimaan Allah ka siiyo كل نفس ذائقة الموت نفول بجريدة وردمينيسا دون كانوا والله كلا هرينيا جريدة ومعلومة البقف بي نجا قاضيسا تعال كيو حرمة إنه هيني بعمر قف تعبان يسا قف والبا سنة ترجع جابوها كنتي ريال بوها وحها وضيجي أقل كوجود على وينا وحها نن عادل كانوا بسوي شقية دتكوا وحها مركز قفك سمرة واحد هذا sid ma wada marteen sidii ma wada cunteen jabad ma wada gasheen marka dad isku shaqatihiin isku deegaantihiin isku meel wada degantihiin aad isku xafiistihiin baranaysa akhlaaqda dhaqanka dad jacaylka dal jacaylka intaas oo caan ku ahaa Cabdirasaaq Cabdullaahi Aadan warbaahinta mustaqbal garoonka aadan cadde magaalada Muqdisho internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah